أصحابي كل شوي في تكنولوجي ما أنت وحين أنا شركة عرورات هذا نقول عصب طيب فضلا سبسكرايب ناصر شركة دينا برنامجين صاصين نقص عنيا وكان الشركة دينا برتنا يا صحابي كبلا ما يساني كان واحد هذا عبدي waxa uu ka waxa uu shaqeeyaa nin xun oo la yiraahdo Owen ninkaasi oo dhalay gabadhan halkan socotay ninkana waxa uu ka shaqeeyaa beerta ninkii cabdi wuxuu jeclaaday gabadha uu dhalay boqorka Owen laabtu taasday wuxuu yiri gabadhan waa inaan jeclaa waa inaan boqorka weydiistaa mudanayga aniga waxbay odhan maayo waan u shaqeeyaa marna waxaan haddaan guursado caadi waa kan ninkii u shaqeeyay isagoo maalin shaqeynayeen ninkii wuxuu ku yiri waryaa adigu maxaad la shaqeynaysaa shaqadaada caadi qabso wuxuu ku yiri anu waxaan rabaa dahabka waxa inta lacagtii qaata lacagta kalena igu lahaada waryaada ninkan waa walaalkii ninkan waa isla shaqeeyaan baan u jeedaa cuntadii uu siiyey way socdeen wuxuu ku yiri mudane waxaan rabaa gabadhaada inaan guursado gabadhaadan jecelahay ma adigu dari ku yiri mudane boqorkii uu soo kacay wuxuu ku yiri gabadhayda adigu ma qalantid buu adigu waxaa tahay fiqiin nin waxba aysan shaqaalaha gabadhayda boqor baa dhalay waxaan siinayaa nin hantiila haddaad haysatid faras maxaa jira dibi amba aqal cad oo sidaydaa kale umaan siinaya boqorkii ka dhaqaaqay ninkii uu niyad jabay wuxuu yidhi maxaa sidaa loogu sameynaya gabadha waan jeclahay ninkii oo cabdi oo la kacay iska soo socday isagoo hawdka iska marayo ciil lukaas ka socda ayaa waxa uu la kulmay shimbir haad ka cunaya shimbir naaladeedii uu la kacay shimbirtii oo cunaysa ayuu badbaadinayaa haadka ayaa isku daya wuxuu yidhi waa inaan badbaadiyaa haadkan cunaysa shimbisha dhagax ayuu qaatay shimbirtii ayuu kaga tuuray shimbirtiina way orday shimbirtii saas ayuu kaga badbaadiyey waxaad timiday tii dhasha baa timiday waxay ka tiri waad mahadsan tahay 100% waxaad ii badbaadisay ciyaalkaygii waad mahadsan tahay abaalkaaga waxaan ku gudo ma garanayo kadibna wuxuu ku yidhi hay waa caadi ayuu ku waashay nin jacayl hayo dhinac kale ku maqan yahay layne jacayl baa haye waxba hal ma waxay siisay waxay ka tiri baalka qadaa baalkaaga waxaan ku gudo ma jire wuxuu ka yidhi waxay ka tiri wax kasta oo niyeysatid waad helaysaa shimbirtii way dooshay ninkii uu saray uu salaamay alla maanta wax uu saray gurigiisii ayuu iska tegay cabdi wuxuu yidhi waxaan niyeystay dibi cad baan niyeystay cirkeeday dibi cad baan niyeystay buu yidhi waxaan niyeysanayaa dibi cad buu yidhi iyo guri sidaas buu yidhi waxa uu soo baxay dibi dhaldhalaalaya oo boqorku lahayn uu yaabay ninkii uu yaabay wuxuu waxaan rajaystay qasri guri ayaan rajaystay wuu qasri ama guri saad gorintayda wuxuu guri qurux badan oo ka weynkii ka fiican kii boqorka baa ilaahay baa weyna waxay wuxuu yidhi waa inaan baalkan xafidaa oo boqorkii u tagaa soo ii siiyo gabadha baalkan waa inaan xafidaa uu tagay wuxuu ka yidhi boqorow waa kan dibigaa baan haystaa sawdha dhalaya kaaga daranta guriga kalaan leeyahay gabadhaadi ma igu daraysaa waa adigii shuruudaha igu xidhe wuxuu yidhi ninkii oo yaaban odaygii oo yaaban boqorkii oo yaaban ayaa wuxuu yidhi haa waan kugu darayaa gabadhayda waanad helaysaa waan kuu soo dirayaa gabadhayda waan kugu darayaa waxba hawelwelin gabadhaydana baahay boqorada waan kugu darayaa wuu socday gabadhii ayaa loo soo diray markii gabadhii saa loogu soo diray ayaa way isguursaday uu yimiday ninkii odayga u yaabay ninka gurigan inta leeg aniga maalin markay isguursadeen muddo dheer kadib ayaa waxa uu arkay way isfahmeen waxay ka tiri waxaanad guri ka samaysatay inaan is aaminay hona ka isqabnay labadeenu wuxuu ka yidhi uu aaminay nin gabadha waxaa la deeqaa uu aaminay dahabkii wixii dhagaxii u dhiibay gabadhana wana khiyaamaysa ileen sirna wada lagama sal gaadhaa horey loo yidhi oo ay ka qaaday intayna kacday markaas uga qaaday waa ka tiri xaaska anaa baashan noo xafidaya meel lay noo dhigaya haye buu yidhi xaaskayga meel noo dhig gurigana noo dhig ilaa waa nin isagu waxba kama mashquulsane sirna wada lagama sal gaadhaa horey loo yidhi uu la kacay uu dhiibay waxaa ka tiri anaa haynaye waxbaa ka welwelin maalmo kadib iyagoo cunto cunaya ayay xoogaa suna ugu dartay naagtan waa naag suntii buu cabay madax wareer buu dareemay kadibna waaba uu suuxayba
naagtina way carartay xasuus bay gasho markaa beedka yidhi wuxuu waxaan kugu darayaa ninka cabdi waxaa jira anu ninka faqiirka raaci ma wuxuu ka yidhi ninkan suu dirbi u doqo taanjirka guriga u yeeshay waa inaad aaba iisoo ogaataa waxaa ku jira aaba masgidis ninkan ma jecli inaan ag joogsaman cabiil may waxaa ka jira ufka aaba wuxuu ku taanjiray inoo soo hel kadibna inooga soo qaad kadibna iskaga kaalay gabadhii say iskaga diidiidaysay kadibna waxay tiri hay aaba bal fikirkaa waan ku dhaqaaqay hadduu waan ku dhaqaaqaabo laakiinse hal shuruud anu ninka guursan maayo aaba kuguma darayo kuguma daro ninka haddaan waashan anigu kugu dara meele wuxuu ku tahan jiray noo soo qabo waa kan aababa ka tiri dhagaxun odaygu ku tahan jiray waa kan dhagaxuna inta waa kan cashirkeena ma dhagax ku tahan jiray waa kan